السلام عليكم عروري maanta waxaan ka sheekeynaa sheeko yar bari waa dawaco walaasheed la aroosay markaas waxay rabtay inay ka qayb gasho arooskii walaasheed kana mashxarado ka alalaasto kana ciyaarto hase yeeshee waxa la yiri dawacadu ma lahayn carab ay ku mashxarado oo carabba laguma abuurin markaas waxay kalba u tagtaa xayawaankii kale oo weydiisata carab ay ka amaato ama ay ka deysato sidii ay u wareegaysa ayaa markii dambe waxa u tagtay yaxaas jifa webiga qarkiisa ama jiinkiisa ama agaarkiisa markaas ayay waxay ku tiri yaxaaso waxaan ka codsanayaa inaad amaahiso carabkaaga waayo walaashay ayaa la aroosayaa marka inaan ka mashxarado arooska walaashay ayaan rabaa marka aroosku dhamaadana waxaan kugu soo celinayaa degdeg sida ayuu yaxaas ku amaanayay carabkiisii isagoo ku adkeynaya inay u soo celiso marka uu aroosku dhamaado dawacadii waxay tagtay arooskii walaasheed oo ay habeenkii oo dhan ka mashxaradaysay markii arooskii dhamaaday dawacadii uma celin yaxaaskii carabkiisa yaxaaskiina wuxuu sugayay inay dawacadu soo celiso carabka xayawaankii kale ayaa waxay dawacadii ku yiraahdeen naadawaco maad carabka u celisay yaxaaska dawacadiis waxay ku jawaabtay muddo badan ayaan cunta ii dhadhamin sidaa daraaddeed celin maayo carabka waxaa la yidhi yaxaasku sidaas ayuu ilaahay hadda u carab laayahay cuntadana wuu liqaa isagoo aan calalin dawacadu ma tagto meel biyo leh oo waxay ka cabsanaysaa yaxaaska carruureeyay maalin wanaagsan